jawaabin dhambaal caashaq marka inantiibaa su-aalihii laleeyahay su-aalo kalena waa loogu sii daray wuxuu yidhi alla ilaahe dhambaal caashaq iyo waa fariin dhabahe waa dhiganihii lagu sharaxay maase dhumuc weyne dhugashada indhuhu kama dhargaan sidigta dhaameele hadba dhowrsanaantii anshaxu dhayga kugu reebiyey dhigaal iyo xusuus bay u tahay dumar dhammaantoode dhaqashadana waa lama huraan dhaxal ma guuraane dhabankeedu waa luul sidii hooyadeed dhud iyo subag bay kusoo dhaashataa dheefta xoolaha markay soo dhawaato qalbigu sii dhadhabaya ay dhibta waadi lowda haddaad saarta dhaayaha ee dhankii aad u eegtaba filkeed way u dheer tahay waa dhudaha laansare ka baxay dhabi la moodiye buu yidhi dhudaha laansare soomaalidu waa yaqaanaa waxaan uga jooday waa dhudaha laansare ka baxay dhabi la moodiye marna waa dhabeel lagu hirtiye dheelitirihiye dhoolaha markay kala furtay dhibicii hoortaaye adigaa dhammaysay hantiyey dhidibkii aasnaaye meelaan dabiib dhaadin baad dhaymahee tahaye dhaqaaq joogsigaagii xaragaxiisa loo dhimaye dhagaxaaba kuu ooyi kara dhaadashada guuda buu yidhi iska daa bini aadamka dhagaxa laamiga yaalla wadooyinka ayaaba kuu ooyi kara dhaadashada guude dhal gobeed sideedii nafluhu kuugu dhaygagay buu yidhi haddaba halkan ay arrini ku jirtaa cumrow marka jacayl laga hadlayo markuu ninku rabo inuu gabadh ammaano ama jacayl u sheegto dee wuxuu la doonan jiray qisooyinkii hore ee jacaylka ahaa ee qays iyo leyle iyo dee dabcan sheekooyinkii caanka ahaa ee hodan iyo cilmi oo kale anu waxaan isniyo qaar hore oo isla adiga ah adigu waxaaga isku hagagaajiso deedna wuxuu yidhi dhagaxaaba kuu ooyi kara dhaadashada guude dhal gobeed sideedii nafluhu kuugu dhaygagay buu dee dhal gobeed waa gabadhaan gabay ammaana u tiriyo qurux dumar oo dhan aan ku dhameeyey marka haddaan iyadii ku dharariyo waxaan isleeyahay iyaduna waa gobadnimo kale dhal gobeed waa gabay 2018 soo baxay ana dhuuman maayo dartaa waan dhutinayaaye waa dareen intuu dhuuxa galay hoos u dhaadhacay waa naf adiga kuu dhaaratiyo gobi ma dhaafaane waa noole dheefaad u tahay badi dharaaraaye waa ruux dhimbiil caashaq iyo dhaawac daashadeeye waa ruux dhaliishaad u tahay dhimashadiisiiye waa ruux inaad dhinac martiyo diiday dheeligee waa dhiig halbowlaha ku shuba xididada dhaadheere waa ruux intuu kaa dhul sugay dhaaxba kuu nugu leh inkastoon walaal kuu dhow iyo dhalasho kuu raacay inkastoon dhambaal iyo fariinka ugu dhigay laabta inkastoon dhammaysaa wadaa dhalolay hawshaada inkastoon dhibaatada adduun joogay dhinacaaga inkastoon xaq lama dhaawacay dhaaxba kugu faanay inkastoon dharaar iyo habeen waafo kugu dhaatay markaan dhaqa idhaahdaba sibaad iiga dhowrataay buu fiiriya markaad wanaag oo dhan samaysay isladii meeshii ugu dambaysayba ayaa la joogaa ayuunbaa maxaa la yidhahdaa retreat dib u gurasho ya markaan xiisa dheehdaba markaan dhaqa idhaahdaba sibaad iiga dhowrataay markaan xiisa dheehdaba sibaad uga dhaqaaqdaay markaan kuu dhawaadaba naftaad dhayga gelisaay buu yidhi imtixaan ku dheeraa miyaan laga dhammaanaynin inaad assignmentkan aad iga saxaysa ee maaragtay maalin baad bogos iga buuxinaysaa markii meesha ugu dambaysa la soo gaaro bay soo bilaabmaysaa inbay xaggan ka soo bilaabmaysaa imtixaan ku dheeraa miyaan laga dhammaanaynin dhexyaree dareenkaygii waan kuu dhammaystiray dhayal haw malayn gabayadiiyo dhihitinkaygiiye alla ilahe sidaan kuugu dhegay waa xusuus dhabahe waa dhibaatadii caashaq iyo dhaawac igu yaale adigoo gar baan kuu dhigtay dhinac ka weydaaran buu yidhi adigoo gar baan kuu dhigtay dhinac ka weydaaran dhaqsa ii jawaab waa su-aalaadu dhumuc weyne kaasina waxaa la yidhahdaa dhambaal caashaq waad mahadsan tahay master nagey aad baad mahadsan tahay waxay la tahay waxaa jira kuwo kaloo iyagana aan waqtiyo kale